kulanti wacan wanaagsan daawada ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka channelkeena qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona yahanaba sugidda Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo markaasi digniin adag u diray al-shabaabka shakhsiyaadka la macaamilaya xilli in hay'adani ay soo bandhigtay 10 ruux oo siyaabooyin kala duwan ula macaamil dagaalmayaasha al-shabaab waan soo guddoonaa madaxweynaha Hirshabelle ku xigeenkiisa Yuusuf Dabageed oo markaasi khilaaf cusub soo kala xagalay markii Dabageed uu qaaday tallaabo ka ciriirisay madaxweynaha Hirshabelle Cali Gudlaabe tallaabadaasi maxay tahay waan soo gudbin doonaa waxaa kaloo idinhaynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu qadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaasha dagaalka hogaaminaya ee al-shabaab looga soo horjeeday oo ku sugan fariimaha hore ee dagaalka arrimo cajiib ah ayuu soo bandhigay ra'iisul wasaaraha iyo tallaabooyin markaasi dad badan ay ka falceliyeen waa daawo doontaan dowladda Soomaaliya waxa ay sax cusub ay ka sameysay deegaanada markaasi al-shabaab lagala wareegay gobolada Galgaduud iyo Hiiraan Baa iyo Bakool waa daawo doontaan qodobadaas aan ku faahfaahin doonaa warar kale ama caalamka diblomaasiyadda oo qayb ka ah Mareykanka oo jawaab ka soo saaray cabsida la qabo inuu Putin u adeegsanayo nuclear markaasi xareysan haddii aad noqoto subscribe ka saar kambalka furo oo si shirkadda saaxiibada meel kasta joogaan idinku commentiga laakiin noo reebaya aad baad u mahadsantiin aan ku bilowno hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya NISA ayaa markii ugu horeysay bilowday inay tallaabo ka qaado dadka la macaamilaya al-shabaab waxayna soo saartay digniin culus oo ku wajahan dadkaasi hay'adda nabad sugidda ayaa howlgal ay sameysay waxa ay ku qabteen 10 qof oo ay sheegtay inay markaasi la macaamilayeen dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo loo qabtay ayagoo markaasi ka soo laabtay waxda al-shabaab deegaanada ay ka ramiyaan waxaa la qabtay 10 qof oo siyaabo kala duwan ula macaamilay argagixisada ayaa lagu yeeray qoraalka la soo dhigay barta rasmiga ee Twitter-ka ee hay'adda nabad sugidda hadda kadib waxaa tallaabo waafaqsan laga qaadi doonaa dad walba oo u tagta adeecada u adeegta ama u fududeysa walaha ay ku dhibaateynayaan amniga iyo badqabka shacabka afyeenka booliiska Soomaaliya oo warbaahinta u soo bandhigay 7 oday iyo nabadoono aaday deegaanada al-shabaab ana macaamilay kooxda ayaa sheegay in loo haysto inay kooxda sameeyeen la macaamil maaliyadeed iyo mid markaas maamul loona gudbin doono xiraalinta si loo maxkamadeeyo talaabadan ayay NISA ku sheegtay inay qayb ka tahay amar ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa inaan kooxdaasi la macaamili karin lana tagi karin meelaha ay joogaan intan ayaa imanaysa iyadoo markaasi ay dagaalo dhan walba ka socdaan gobolada Hiiraan Baa iyo Bakool Galgaduud waxaana ciidamada dowladda la wareegeen deegaano ay al-shabaab markaasi hore u heyseen shabaab ayaa wajahaysa cadaadiskii ugu xoognaa ee la soo saaro waxaana dagaalo iyo baagsi loogu furay deegaano badan taas oo qasbay in deegaano badan markaasi ay ka cararaan NISA ayaa qayb ka dagaalka lagu hayo al-shabaab iyadoo markaasi ciidamada halgankana ku jira ay ku caawinayso siyaabooyin kala duwan dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibayaal khilaaf cusub ayaa soo kala xagaray hogaanka maamul goboleedka Hirshabelle ay hogaaminayaan Cali Gudlaabe madaxweynaha oo Muqdisho iska dhex seexday xilli madaxweynayaasha maamulada kalena ay ku sugan yihiin jiidda hore ee dagaalka oo dadkooda shacabka ah ee markaasi ay garab siinayaan halka kan Hirshabelle madaxweynaha kaana oo xalna dhaxudayo asagoo ismooday inuu yahay kubii cadaanka ah Jim Swan iyo soo kale Larry Andre oo markaasi ayuu xalna markaa deganaa kii Dabageedna ku xigeenkiisana wasna beledweyne ka soo qaylinaya oo markaasi shaqooyinka halkaas ka wada hadaba khilaaf ayaa soo kala xagalay dhinacyada inkastoo khilaafka uu muuqdo mid madaxweynaha Hirshabelle uu leeyahay mar leen Dabageed naga aamuso oo tallaabada uu qaaday uu ku raacayo taa oo markaasi ah afka barkii aan jirin qulubta sida Dabageed oo kale ujeedadu waxay tahay khilaafka soo kala xagalay dhinacyadan madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle Yuusuf ahna kusmaha madaxweynaha Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa shaqo joojin ku sameeyay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee maamulka Hirshabelle madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle Yuusuf Dabageed ayaa waxa uu faray wasiirka ku xigeenka wasaaradda caafimaadka inuu sii wado shaqada wasaaradda caafimaadka waxaana arrintan la ogeysiyay madaxweynaha Hirshabelle Cali Gudlaabe Xuseen markii la arkay baaleeray inuusan tixgelin shaqooyinka baahida loo qabo in markaasi la magacaabo shaqo joojin lagu sameeyo wasiirka caafimaadka ayaa waxaa markaasi shaqada laga joojiyay Dr. Zakariya Maxamed Axmed Nuur wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada waxaana shaqada wasaaradda caafimaadka sii wadi doonaa wasiirka ku-xigeenka wasaaraddaas mudane Shucayb Xasan Maxamed Dabageed ayaa faray madaxweynaha in markaas wararkada ka soo baxday xafiiska Dabageed lagu baahiyo dhinaca madaxtooyada maamulka Hirshabelle ee TV-ga ama markaasi xafiiska madaxweynaha taa ugu dambeyntii madaxweynaha Hirshabelle Cali Gudlaabe oo markii dambe iska meermeerinaya arrintaasina
ugu dambeyntii kusoo daawacaya qaybihii dhexe ee janalkeena ayaa daawanaysan saaxiibayaal haddaad nagu cusubtahay subscribe inoo saar kambalkana fur una sheega kareeya saaxiibadii meel kastay joogaan idinkoo commentiga like inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin markaana ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa qadka telefoonka si toos ah ula hadlay hogaamiyaasha kacdoonka markaasi wada ee al-shabaab looga soo horjeedo ra-iisul wasaaraha ayaana qadka telefoonka kula hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta hogaaminaysa kacdoonka ka dhanka al-shabaab ee dalka ka socda kuwaas oo markaasi u kala sugan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud wasiir Cabdiraxmaan Cadaalo oo ku sugan jiida hore ee bariga Galgaduud gudoomiyaha degmada Baxdo xildhibaan Maalik Cabdalla oo ku sugan iyagana markaasi mid ka mid ah hogaamiyaasha ciidanka deegaanka ee ka hoggaansan si toos ah u xiriiray wasaare Xamse Cabdi Barre wasaare ayaa mas'uuliyiintu la hadlayay ka wareysay xaaladda deegaanada markaasi ee dagaalka ugu jiraan isagoo ku dhiirigeliyay hawsha ay wadaan isagoo xildhibaanada kale ugu baaqay inay dib ugu laabtaan deegaanadii laga soo doortay oo markaasi ay al-shabaabka ka xoreeyeen sidoo kale Xamse ayaa wasiirka gaashaandhigga Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac wasiir madaxana furo taliyaha ciidamada xoogga Janaal Odo Yuusuf Raagi ku bogaadiyay doorkooda hogaamineed ee howlgallada guuleystay dib u xoreynta dalka oo hadda markaas ka socda dhowr deegaan dhammaan dhinacyadii ula hadlay wuxuu Xamse Barre si cad ugu sheegay in dowladda ay markaasi ka go'an tahay inay soo afjarto al-shabaab oo si buuxda ay u garab taagto dadka deegaanka iyagoo halganka ii socon doona isagoo deegaanada aan weli kacdoonka ka kacdoonka aan sameynaa dadka ku noolna ugu baaqay inay is abaabulaan oo markaas ay dhinacooda ay ka qayb qaataan gordhow wararka arrimaha caalamka ee diblomaasiyadda ayaad maqli doontaan saaxiibayaal hase yeeshee waxaan eegaynaa markaas shax ay dowladda federaalka ee soo saartay oo ah deegaano badan oo markaasi al-shabaab laga qabso ka kala tirsan Galgaduud Hiiraan Baay iyo Bakola ciidamada xoogga oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa saacadihii ugu dambeeyay howlgallo kula wareegay tuulooyin badan oo ka tirsan gobolada Hiiraan Baay iyo Galgaduud oo ka kala tirsan Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed saraakiisha ciidanka dib u xoreynta deegaanka gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen in deegaano badan ay al-shabaab ay ka saareen kuwa wacad ku maray in gobolka oo dhan ay markaa ka xoreyn doonaan al-shabaab maalmaha soo aadana dhinaca kale ciidamada markaasi xoogga dalka ee ku sugan gobolka Shabeellaha waa ciidamada xoogga ee ku sugan Galgaduud oo markaasi dhankooda kaashanaya dadka shacabka ayaa la wareegay deegaano dhowr ah markaasi ka tirsan goboladaasi waxaan eegaynaa Hiiraan haddii aan eegno deegaanada al-shabaabka laga saaro waxaa ka mid ah Muqoqori iyo markaasi Tardho iyo saraakiisha xaqiijeen Galgaduud waxaa ka mid ah Meegaagdhuub Lisaqa Abuurey Dhuumaale iyo Cali Weyn Baay waxaa ka mid ah Baayaale Caliyo Dooyo Xaawo Dhiisile Boorama Karaney iyo sidoo kaleete Daawuudo waa dhammaan markaasi deegaanada al-shabaabka laga qabsaday ka kala tirsan gobolada Hiiraan Baay iyo Galgaduud wararka arrimaha caalamka ee diblomaasiyadda waxaa ugu waaweyn Mareykanka ayaa war ka soo saaray jawaab xulusna ka bixiyay haddii markaasi Putin uu adeegsanayo hubka nukliyeerka Mareykanka ayaa ugu digay Ruushka cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii uu hubka nukliyeerka u isticmaalo dagaalku ka wado dalka Ukraine waxaa sidaas sheegay Czech Slovakia taliyaha amniga qaranka madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Joe Biden Slovakia ayaa markii uu ahaa barnaamijka bandhigga toddobaadka ee telefishinka ABC ayaa sheegay in saraakiisha Mareykanka ay si gaar ah ay u sheeganayaan dhigooda Ruushka in markaasi madaxweyne Biden uu si cad ugu jawaabi doono haddii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu amro weerar nukliyeer ah laakiin ma uusan sheegin sida uu Mareykanka uga jawaabi doono jawaabta Mareykanka ayaa timid kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu muujiyay suurtagalnimada weerar nukliyeer ah kadib markii toddobaadkii hore ugu yeeray ilaa 300,000 oo ciidamada kaydka ah si ay ugu geystaan dagaalka toddobaadka bilood socda ee dalka Ukraine aan weli guul dhamaad aan laga gaarin Ruushka ayaa isku dayaya in xitaa uu sameeyo in askarta waddankiisa uu sii dhiirigeliyo gudahanna waa laga wararka gobolada Soomaaliya caalamka kala socda channelkeena fadlan hadii aad nagu soo subscribe kana soo kan balkan furno si shaqee saxibili markasta joogan aad baad mahadsantiin